بسم الله الرحمن الرحيم كلنا wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga HBN barnaamijkan waxaynu ku soo qaadanaynaa iyadoo dagaalka waddanka Ukraine sanadkii saddexaad oo socdo isla markaasna dhinacyada ku lugta leh maalin walba isku jeedinayaan hanjabaad iyo cagajugleyn dhinacyadaasna ay isku diyaarinayaan dagaalkii saddexaad ee adduunka ayaa hadda xaalad kale oo culus ay soo korortay dhawaan Ruushku waxa uu ku eedeeyay wadamada reer galbeedka in ay gooyeen dhuumihii shidaalka qaadi jiray ee badda mari jiray ee lagu magacaabi jiray Nord Stream arrinkaasi oo uu sheegay inay tahay majaxaabin dhaqaalihiisa lagu majaxaabinayo hadda Ruushka waxa lagu tuhumayaa in isna dhinaciisa uu wada qarbudaad uu qarbudayo nidaamka isgaarsiinta ee xarkaha internetka iyo kuwa kale ee maraakiibta loogu talagalay ee badda la dhigo taasi waxay keentay in wadamada NATO arrintaasi ay u muujiyaan inay tahay daandaansi dagaal heegan buuxa ayaa la galay digri baana Ruushka loo jeedinaya iyadoo tan lagu macneeyay Ruushka isku diyaarinaya dagaal isla markaasina doonaya inuu carqaladeeyo hanaanka isgaarsiinta ee Yurub xiisadan cusub ee imika soo cusboonaatay ayaan barnaamijkan kula fogeeri doonaa حاج كومي برونتو سوغو هشا سوغو البامادورو كواوهي سوغو الرغو بلانياسا هدنا سوغو التونا كل واديار دوقاق عيار إقدا عيارت اسباجيت هاوس هو إيقا باستا دا إيدالكينا أها واندل بسوغدي هوران لغا كيني عادي ماها سوغو دا وسببت لوضا جعلادي برونتو سوغو لغو مدر حواجي مرق دقاق يابا أباحن waxtayala sida olifooyala lagu sameeyaa برونتو سوغو boqolkiiba boqol waa inkarasiyo شو بس كده waa hilib shiidan amba vegetable معان كان كفهمي haddaad mashquulsan tahay degdegsan tahay martiqaad qabto ama dhadhan tabayso tartiibka dalba suugada qarniga ee spaghetti house كوالتي والله هاري سوغو دا هدا دلباتو دك دك أيا قوبتا دا لغوغو كينيا qancinta macaamiisha waa astaanta spaghetti house soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah una adeegsato adeegga Safari Remit booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com maxamed cadde ayaa soo akhriyay xogtan qadka ku jira wixii wararka ee arrimahan ay wakaaladaha wararka ay ku qoreen inoo soo gudbinaya maxamed bal inoo warrayn xiisadan cusub ee hadda cirka ku shareeran cinwaan waxaa looga dhigay NATO sidee uga jawaabaysaa dagaalkan isku dhafan oo uu Ruushku wado dhawaan ayaa waxaa la sheegay in badda hoosteeda xargaha yaalla ama dhuumaha yaalla ee isgaarsiinta ee badda Baltiga loo yaqaano in waxyeelo loo geystay taasoo dhalisay cabsi ah in Ruushka uu rabo inuu carqaladeeyo xargaha isku xira wadamada qaar ka mida NATO ka mid ah waxaana la sheegay inay saameyn weyn oo xagga ammaanka ay yeelan karto arrintaasi xaaladahani ayaa waxa ay khabiiradu ku tilmaamayaan inuu yahay xirfad dagaal isku dhafan oo uu Ruushku isticmaalayo oo loogu talagalay in lagu carqaladeeyo kaabayaasha muhiimka ah lana abuuro in khilaaf weyn la dhex dhigo xulufada reer galbeedka dhexdooda marka maxamed ma la sheegay ilaa hadda wadamada arrintan ay saameysay laba xaaladood oo waaweyn ayaa la sheegay in Ruushka uu lug ku yeeshay waxaana ay laga muujinayaa walwal aad u weyn waa midda koowaad waddanka Finland iyo Germany xargaha cable-ka loo yaqaan ee isku xira ayaa waxaa la sheegay badda hoosteeda mare ee internetka ah Finland iyo Germany isku xira ayaa waxaa la sheegay in ay go'een taasoo shaki keentay in si kas ah loo farageliyay waxayna arrintaasi ma carqaladeynayso keliya baa leeyahay isgaarsiinta sidoo kale waxay hoosta ka xariiqaysaa sida kaabayaasha wadamada Yurub in sida ay u nugul yihiin midda labaad baa la yiri Lithuania iyo Sweden kaabayaashii isku xiriyey ay ka mid yihiin khadka isku xiriyey ayaa ah mid isku xiriirinayay jasiiradda Gotland la yiraahdo iyo Sweden in la gooyey waxayna taa dardargelisay cabsida ah in ammaanka Yurub badda hoostiisa iyo khadadka yaala inay khatar ku jiraan xaaladahan ayaa la sheegay
in ay muujinayaan sida ay ugu nugul yihiin kaabayaasha wadamada Yurub iyo NATO in la qarbudo ama la carqaladeeyo, gaar ahaan kuwa isku xiraya gobolada ku yaala badda Baltiga loo yaqaan. iyadoo taa ka jawaabayso xubnaha dalalka ku jira NATO ayaa si dhaqso ah waxay u qaadeen tallaabooyin. Estonia ayaa bilowday tusaale ahaan waxay ciidankeeda badda u dirtay badda Baltigada si ay u ilaaliyaan dhuumaha iyo khadadka keebalka ah ee badda hoostiisa mara, kadib markii lagu eedeeyay Ruushka inuu isku dayayo inuu carqaladeeyo. tallaabooyinka noocaas ayaa waxay muujinayaan arrintani siday u tahay mid xasaasi ah, iyadoo xulafada NATO ay dib u eegis ku eegayaan khataraha noocaan iyo siday uga jawaabi lahaayeen. waa gartay. marka maxamed, ilaa hadda wax tilaabo ah wadamada NATO ma qaadeen oo arrinkan ay uga jawaabayaan? saraakiisha NATO ayaa waxa ay soo gudbiyeen ama soo saareen digniin ay ku tilmaamayaan xirfadaha uu Ruushka isticmaalayo inay yihiin kuwo cadownimo ay ka muuqato, isla markaasna laga yaabo in ay keento colaad ballaaran. Mark Rutte oo ah xogeyaha guud ee ururka NATO ayaa sheegay in xulafada NATO in aynan hadda diyaar u ahayn inay dagaal ballaaran la galaan Ruushka, wuxuuna carabka ku adkeeyey in si degdeg loogu baahan yahay in la kordhiyo miisaaniyadda difaaca ee wadamada ku jira Yurub, isla markaana la qaato maskaxiyad ah in dagaal heegan loo galo. waxaana intaa lagu daray in feejignaan la muujiyo, gaar ahaan dukumentiyaasha qarsoon ee wadanka Jarmalku lahaa ayaa waxa ay daboolka ka qaadeen qorshayaal lagu taageerayo in la geeyo 800,000 oo ciidamo ka tirsan NATO wadanka Ukraine haddii dagaalka saddexaad ee adduunka uu bilowdo. isdiyaarintani ayaa waxaa lagu sheegay inay muujinayso xaaladda siday faraha uga sii baxayso, xiisadana cirka isugu sii shareerayso, in Ruushka dagaalka lala gelayo iyo sida ay isu diyaarinayaan wadamada NATO ka tirsan siday uga jawaabi lahaayeen khataraha wax ku oolka ee kasoo kordhaysa dhinaca mu'aamaradaha uu Ruushka ka sameynayo kaabayaasha iyo isgaarsiinta wadamada ku jira NATO. arrintaa marka maxamed, saameynteeda bal inooga waran, maxaa ka dhalan kara? marka la fiiriyo sida ay isugu xiran yihiin wadamada NATO iyo wadamada Yurub, xaaladahani dhacay ee kabalada la goynayo badda hoosteeda ah ayaa waxay u muuqdeen yihiin kuwa olakac loo jaray oo istiraatiiji ah. waxaana ka dambeeya ayaa leeyahay Ruushka, wuxuuna tijaabinayaa baa leeyahay adkeysiga ay wadamada reer galbeedku leeyihiin iyo awoodda ay uga soo kaban karaan khasaarooyinka noocan oo kala carqaladeyntan kaabayaasha muhiimka ah ee Ruushka uu ku tillaabsaday ayaa waxaa la socda baa leeyahay NATO ayadana in ay jawaab xoog la diyaarinayso. waxaana laga baqayaa baa leeyahay in colaadu ay ballaarato, laga yaabo in caalamku uu ku dhowaado xaalad khatar ah, qarkana uu saaran yahay inuu qarxo dagaalka saddexaad ee adduunka. tallaabooyinkii dhowaan ee NATO qaadeen ay ka mid tahay inay ciidamo geynayaan ama ay kordhinayaan ammaankooda difaacidiisa ayaa waxa ay tilmaamaysaa sida xulafada NATO ay uga go'an tahay siday uga hortegi lahaayeen cabsida kasoo food leh wadanka Ruushka. si kastoo ay tahay, xaaladan waxay hoosta ka xariiqaysaa in NATO ay si degdeg ugu baahan tahay in caalamka oo dhan ay feejignaadaan, la iskana kaashado sidii looga hortegi lahaa haddii dagaal ballaaran uu bilowdo oo Ruushka lala gelayo. dhowaan dhuumahan iyo keybaladan badda hoostiisa ee la gooyey iyo NATO jawaabteeda ayaa waxa ay muujinaysaa caalamka sida dagaalada casriga ah ay isu bedbedelayaan. waxaana muuqata in kaabayaashan xagga ammaanka ee muhiimka ah ama isgaarsiin ha noqoto ama internetka noqoto siday u nugul yihiin, iyadoo xiisada u dhaxaysa Ruushka iyo NATO ay socoto korna u kacayso, ayaa caalamka oo dhan waxaa qarka uu saaran yahay baa leeyahay amni xumo aad u ballaaran oo u baahan
in si weyn looga fiirsado khatartaasna si weyn ayay usii kordhaysaa waxaa la isu diyaarinayaa oo qorshayaal istiraatiiji loo sameynayaa sidii caalamku isaga kaashan lahaa sidii ku qaadi lahaa tallaabooyin muhiima oo uga soo kabanayo caqabadahan waaweyn iyo sidii lagu xaqiiqsan lahaa xasiloonida iyo in la dardargeliyo caalamkan hadda marba marka ka dambeysa khatarta kusii siqaya waa gartay maxamed arrintan marka si gaar marka loo eego tan iyo dagaalkii Ukraine iyo in kasii horeysaba wadamadan sheeda la iska eegayaa hadba gobolada Soomaalida qaarkood waxa la yiraahdaa ninkii dagaalkaaga doonaya doorada iga celi weerada ama digaaga iga celi arrintan daansiba ma isbool xoofta miyaa dhinac kasta ka imaanaysa mise sir dhaba ayaa la isku tijaabinayaa qarka wax loo saarayaa qatar maxay qobrada dhanka ammaanka arrimahan ku macnaynayaan adduunkii isbedel weyn ayaa ku yimid sida khabiirada caalamka ay qabaan marka ay timaado xagga isgaarsiinta iyo xagga tiknoolajiyadana casriga ah ee ku dhisan caqliga samayska waxa uu galay meel walba hadda dagaalkii waxaa loo isticmaalayaa caqliga samayska diyaaradahan aan duuliyaha lahayn qaarkood iyo gantaaladan cusub ee hadda la sameynayo waxaa loo kaashanayaa caqliga samayska waxaadna moodaa adduunkii hadda inuu ku tillaabsanayo in qolo walba qolada kale si ay uga reebto tartanka in ay carqaladayso waxyaabaha isgaarsiinta tusaale ruushka dhowr goor ayuu ku hanjabay hadda ka hor inta aan laga dilin ninkan generaalka ah ee mas-uulka ka ahaa arrimaha kiimikada waxa uu ku hanjabay in uu cirka ka soo daadin doono satellaytyada Mareykanka militariga iyo kuwa rayidka hadda badda hoosteeda ayaa loo disay oo dhuumihii internetka iyo isgaarsiinta waday ayaa la carqaladaynaya waxaanoo dhan waxa ay daaran yihiin in ruushka markii hore la daandaansaday la gooyey dhuumihii saliidda wixii ka dambeeyey ruushka shaqu waday shaqadii ayaa hadda lagu soo baraarugay waxaan leeyahay waa soo taraysaa waxaanad arkaysidna waa wax aqoon ku dhisan weeye ma aha dagaal ciidan is hortaagan yahay waa dagaal qarsoodi ah oo doqon magarato ah oo ninkii laga badiyana afka ciidda loo darayo diyaarad kici karta ama ishagi karta ma jirto caqliga samaynta la'aantiis iyo isgaarsiin la'aanteed marka hawsha socota waa hawl la leeyahay dagaalkii ayaa hadda wejiyo cusub galaya kii xabadaha iyo gantaalada iyo diyaaradaha inta la iskala gudbay iyo maraakiibta ayaa hadda waxaa loo gudbay dagaal elektrooniga kombiyuutarada in la jabsado in khadadka fariimaha muhiimka lagu gudbiyo isgaarsiinta in la gooyo iyo waxyaabo aanan weli soo naasa cadaan oo ah in satellaytyada cirka laga tuuri doono marka adduunku wuxuu ku sii saqayaa ay khabiiradu qabaan marba marka kasii dambeysa si qolada kale ay u tijaabiso hadda ruushku siday u dhigayaan hadalka waxa weeye wuxuu tijaabinayaa sida ay u xalliyaan waxaan uu sameeyey iyo inta ay ku qaadanayso haddii dhuumaha la gooyey badda Baltiga ah oo bad ay wadaagaan ah Yurub iyo ruushka ay wadaagaan ah badaha caalamiga ayaa ka ilaalinaya ruushka marka iyo haddii uu badaha waaweyn dhex tago oo sidaanoo kale uu sameeyo carqaladayntu way sii ballaaranaysaa adduunkana waxa uu ku siqayaa baa leeyahay dagaalka saddexaad adduunka marka ruushka iyo Mareykanka iyo reer galbeedka waa kala irdhoobeen tilaabada iyo abaabulka socdana waxa weeye ayaga unba ogsoon oo biyaha hoostooda iska arkay waayahay biyaha hoostooda ayaa la iska arkay baan kusoo gabagabaynaynaa maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashanu ay mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka daawade si aad noola socoto oona hesho wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadkan iyo xogahan aan soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horey aadan ugu xirnayn hadda kusoo biir waana mahadsantihiin mar kale nabaadiino haddii aad tegayso xajka tigsan leedahay tasho oo cimrada gaar easygo tilmaamiya waa taakulayse waxaad ugu tegaysaa intaad tamaniyayse tigidhada ka sii jaro dabadeedna toos baad raajix u tegaysaa ee adiya tiimkuba tubta khayr ku sii mara
shirkadda safarada caalamiga ah ee EasyGo Travel ee dalka UK waxay bulshada u soo bandhigaysaa barnaamij cusub taas oo ah heshiis ay la gashay Al Rajixi oo ah shirkad degan dalka Sacuudi Arabiya kana shaqaysa maamulidda arrimaha xajka iyo dhammaan wixii la xiriira xajka iyo umrada. heshiiska labada shirkadood ayaa ah in EasyGo ay shirkaddaas wakiil uga tahay UK iyo dhammaan qaaradda Yurub. EasyGo waxay xajka iyo umrada ka qaadaysaa qiimaha ugu yar ee xajka lagu tago taasoo aad loogu naxariistay dadka doonaya inay soo gutaan waajibaadka xajka lagana taxadiray wax kasta oo uga baahato arrimaha xajka maadaama EasyGo ay tahay wakiilka Yurub ee shirkadda Al Rajixi. EasyGo Travel waxaad sidoo kale ka helaysaa safarada caadiga ah oo iyagana diyaar ay idin la tahay waxayna sidoo kale xafiis ku leedahay dalka Denmark oo xafiiska labaad marka laga reebo kan UK. faahfaahin dheeriya la xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda. muqdisho home center aqal wada xiriiriya fadhixiisa loo qabay aroosyadu xasuustaan waxay xoog u yaalaan muqdisho home center. xaajiga arooska iyo xaflad guurdhigayo warkaygan xaqiiqda xuuraamiyo dhuux xujana yuusan kugu noqon gabar xuural cayn u eg xaakim waa ku siiyay xasil say u ahaato xiskeeduna u qaboobo qalabka ay xabiibyadu xiisaha u qaadaan xubbiguna ku siyaado ee muqdisho home center. gabadha xaaji u qaad muqdisho home center waxay diyaar kuula tahay dhammaan noocyada aqalada jiifka fadhiyada iyo qalab kastoo reerka looga baahan yahay qalabka xafiisyada rogaga iyo agabka qadada oo dhammaystiran iyo qalabka elektarooniga ah sida qasaaladaha talaagadaha kukarada tiifiyada iyo wixii la mid ah waxaana ay ku taallaa degmada Boondheere gaar ahaana nawaaxiga isgoyska Jubba ama Busley. kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.